dalka Itoobiya u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Tigreega waan ogeyn dawladda federaalka in ay sheegtay in la soo gabagabeeyay howlgalka oo la dhameystiray balse wali waxa ka socda gobolka Tigreega dagaalo culus oo u dhaxeeya labada dhinac sida wararku ay sheegayaan waxa aad moodaa in hogaankii dagaalka haatan ay la wareegeen Tigreega oo iyagu bilaabay dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa horena waxa uu sheegeen in cid waliba oo soo gasha deegaanka Tigreega inaysan badbaadi doonin oo ay layn doonaan hadda waxaynu eegaynaa xogihii ugu dambeeyay iyo ninkii Gabriel Mikail ahaa halka uu ku sugan yahay miyigu ku sugan yahay ma waxa weeye caasimadda maqal dhinaca kaga jira mise agaarkeedu wareegaysanaya ila nin magaalo joogo caasimad joogo wuxuu ahaa muddo waxa weeye noolaayo nolol fiican ku noolaa taro seebu qarri ah oo dibir ah oo kuleel oo maartay uu maartay uu adkaysan kara oo ama uu noloshiisa maartay waxay ugu waxayn doonaa marka waxaynu fiirinaynaa balxogihii ugu dambeeyay ee dagaalka iyo sida uu wax u socdo jamcu soo dhawow see wax u socdaa dagaalkii Tigreega iyo dawladda federaalka u dhaxay bismillaahir rahmaanir rahiim markale waan salaamaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay rabbi nabad iyo nabadgelyo korkiina ha yeelo inta kadib ilkaas horta dagaalka waxa weeyaan meesha hore waa tan sheegno leyrka yaa la isku damsaday marka uu humsiga iyo hugunka uu baxayo mooyaan wax kale oo maaragtay inta badan wixii ka yimaada waa duul weeyaan laakiin meesha mucda ah hardanku ka socdaahay waxa weeyaan xogteeda cidda keeni kartaa kulli waa dadka maaragtay dagaalka qaybta ka ama saxafiyiinta iyagu la socdo kuwaana looma ogola askarihi kale iyo dadkii laga heli lahaa waxyaalaha xogaha badan laga heli lahaana way xadidan yihiin oo markaad hadda isku daydo inaad maaragtay inaad garanayso ama maaragtay xogtiisa aad la socoto inaad hesho waxay kugu qaadanaysaa telefonkiisa kaliya inuu dhaco yaa waxa laga yaabaa inay kugu qaadato gelin dhan inay kugu qaadato inuu telefonku gaadhaba meesha loogu talagalay hadda waa telefon si gaara aad u wacayso ogow ma aha network caadiga ahaa waa telefon furan oo hawo gaara ku shaqeynaya oo maxaan ku ilaahdaayo to loogu talagalay saraakiisha ciidanku inay adeegsato kuwii noocaas ahaa ee lagalana xiriirayay maartay warbaahintan ay kala xiriirayeen ee saraakiisha hogaamintu ay haysatay kuwii baa inay iyagu ku soo wacdaan mooyaan xataa marka aad u wacdo ay adag tahay inaad hesho marka taa laga yimaado ee dagaalku uu socdaa maaragtay to magaalooyin badan ama deegaamo badan buu ka socdaa sida aynu ogsoonahay ciidamada maamulka kooxda TPLF waxay maalin ka hor la wareegeen laba maalmood ka hor waxay la wareegeen maxaan ku ilaahdaayo meesha la yiraahdo Aksum la wareegidii Aksum ay la wareegeen ciidanka dawladdu meelan ka fogeyn magaalada oo duleedkeeda ah ay deganaayeen sida ay ku waramayaan ilo gaara oo aan warkan ka soo xiganayno ugu yaraan 3 isku day oo ay dawladdu shalay iyo maanta waliba maanta dagaaladii ugu kharaara ay ahaayeen oo ay ku doonaysay inay dawladdu maaragtay mar kale ay Aksum gacanteeda ku soo celiso yaa maxaan ku dhahayto yaa dhacay ama ay dawladdu qaaday dhammaan intii isku day ahaa way ku fashilantay oo ma samicna wala ma raayna ba ka raacdo hadiyad waxaan marka waxa weeye xidadaha adkaysteen diyaaradaha hadda dib u garaacaya hadiyad diyaarado yaa dib u garaac dama waa dadkii shacabka ahaa oo guryahoodii ku soo noqday wax dagaalamay hadiyad oo dadkii waa hubkii uu lahaa dadkii way hubaysan yihiin dadkii way hubaysan yihiin islaam waliba ilmaheedina way wadataa aakaygeedina way wadataa ilmihii aakaygii iyo laba dhinac ku kala wadataa marka hadii ilmahan la qaxdo waa dambiile ciidankii dawladda qori kala hortimid moogta hadhow loo tixgelin maayo loo xirin maayo waa hooyo oo ilmay nuujinaysa iyo waa kan loo tixgelin maayo xabsiga la dhigi soo garan marka islaantan inay gurigeeda difaacato iyo ubadkeeda xaq bay u yeelanaysaa marka dhibku meeshu ka imanaya waxay tahay waxa hadda maaragtay dadku ciidamada dawladda ay wajahayaan waa dadka shacabka ahaa weeyaan dadka shacabkaana waa la layn karaa mooyaan meel kale ku noolaan Suudaan haday u qixi lahaayeen kuwii jiray waa laga soo celinayaa baa leeyahay loo waayay waxay ku noolaadaan marka qof walba gurigiisa ridiisa inuu ku dhinto yaa maaragtay yaad muddo inuu diyaar u yahay hadii ay maxaan ku dhahay isdhiibaanna axmaaraysa ka nabadgelaynin oo iyagiina maaragtay meeshan baangada wata marka dhibka jira waxa weeyaan ama xaqiiqda iyo waaqac dhabta ah ee ay wajahayaan dadka Tigreegu laba geeriyood
labada geerood marka tii ay u bareeri lahaayeen iyagay u taallaa waa mid inay xarago ku dhintaana iyo mid maxaan ku idhahdaa inay silic maryaad ay u dhintaana labada mid bay wajahayaan laakiin noloshu waa un kolley waa waqti dambe waa hagaag ninkii dhibrisiyoon ahaa waa kii maalin dhawey soo baxaysay in uu jubba caasimadda South Sudan inuu joogay kadib waa kii yidhi ma joogiye duleedka waxaan joogaa maqale weliba maqalo korkada ku sugaya mise wax dhaqaaq uu sameeyay ni horta isaga yaalihiise shalay baa ugu dambeysay horta warkiisa shalayto markii uu hadlay Reuters baan jeclahay inay waraysi ka qaaday waxa uu ka warramay inay maaragtay dagaalamayaan weliba dagaalkina ay sii xoojiyeen يعني maxaan ku idhaahdaa magaaladii maqala ahaydna wixii galay ay noqdeen yani gaal baa god ugu jira gudinta ii keen micnaha dawlad baa mar lahayd maqalaan ku hareeraysanee iyagan ilaahu mar soo diray hadda iyaga waxay leeyihiin gaal baa god ugu jiray gudinta ii keen marka maqala saddex albaab bay lahayd buu saddexdii waan ka taagannahay ama saddex meelood bay saddexdii waan ka taagannahay si fiican marka kulli albaabadaas maqale ee uu sheegay mid kamid ah uu joogaa baan u malay si fiican duu jubba jirayna isaga u taala oo wuxuu noo sheegay ay been tahay aad iyo aad hadii uu maqale joogana de warkaas waa arkaynaa marka calaa ayati xaal waxa weeyaan meeshan dagaalka hadda waxaa majaraha u haya oo farsamadii dagaalka hogaaminaya waa shuftada nimanka muxuu ahaa la yiraahdo waa jabhadda nimanka la yiraahdo TPLF weeyaan de TPLF iyadoo BM-yadeedii iyo kaarayaasheedii wadata yay sidii maartay jinki yay kor uga soo boodiyay maxaan ku yiraahdaa maqale iyo meel kasta magaalo ahayd marka banaanka iyo qoordiin leynayaan iyaga iyo marka nimankii ay ishayeen oo magaaladii qabsaday ama ha ku horjoogaan ama ha ku maartay ha ka soo saaraan kulli hadda waxa weeyaan dagaalku uu socdaa marba marka ka dambaysan dagaalku uu ka sii adkaanaya dadku way sii jilcayaan waa la sii rafaadayaa ay xabadu maalin ku darsantaba dawladda iyo qoladan kale labaduba way sii jilcayaan shacabku wuu sii jilcayaa marka way isku garab dhici waa isku garab dhacaana waa muhiimadda waxyaalaha ugu muhiimsanaya rajada laga qabo weeyaan aad iyo aad waa tahay dawladdu waa tiri macnaha inta badan dhulkii waa ay ka qabsatay Tigreega oo maqalo u dambeysay caasimadda waa tiri dawladdu waa la wareegnay howlgalkii waa la soo gabagabay tirimaha la wareegtay waa tid habeen horan aan filayo inay diyaarad soo rideen nimankii TPLF warbaahintoodii bay ka baahiyeen iyagoo haya dooliyihii diyaaradda aan soo ridnay ay say dhaheen nimanka le wadankii dhulka waa laga wada qabsaday warbaahintan ay wax ka baahinayaan maxay ku taallaa walaani oo taasu waa dee waa su-aasha dadku aad is weydiinayaan waay dawladdina waxay leedahay dhulka waan wada qabsanay iyagana warbaahin bay waxaa weeye dad ay leeyihiin waan qabanay aan weliba idaacad ahayn oo weli TV oo haddana satellite ku jira su-aasha inta badan la isweydiinaya wey marka uu shaqaynaya hadda uu qaylaya waka marka niyo su-aalahaas waa kuwa la rabo in Mareykanka la soo weydiiyo aad iyo aad waxyaalaha TPL baa ka jawaabi karta su-aashaas dhan maranayaan macnaha waxay ku tusinaysaa nimankan weli inay joogaan nimankan kulli waxbay degsadeen qorshay degsadeen soo aan garan aad iyo aad dadka meesha marayana marka xaqiiqda laga hadlo aad iyo aad kan hadda meesha gudoomiyaha ka muxuu ahaa kan hadda jooga meesha depression dadka uu wuxuu ku noqonayaa isagu de ragii ka khatarsanaa ee ka waaweynaa yaa meesha yaa jooga horta maxaan ku idhahdaa maskaxdooda ay Ethiopia ku socotay dadna waa dad la arkay ahaayeen dadna waxay ahayn abeesooyinka xabaalan abeesooyinkii xabaalaa ee Ethiopia 27 sano maartay dhiigga ka shaqeeyay haddana aan la aqoonin yaa horta meesha fadhiya banaanka fadhiya kuwa waxaa jira haddii la arko kuwa haddii la helo kuwan hadda dadku ay yaqaanaan oo dhan ay caruur noqoni hadda inagu waxaynu naqaano dadku la sheegay depression gabra Mikael iyo maxaan ku idhahdaa tukila dhihi jiray Getachew Asafa iyo waa iyo kan yar maxaa la yiraahdaa Kuusan reeda Getachew reeda iyo waa dad noocaas moogtahay dad laakiin waxaa jira xabaalanayaal ah oo dadka abeesooyinka caadiga ah ee meesha jiife ee Abiy Ahmedna uu ka gam ilaa yahay uu yaqaana sabxaad naga iyo abayta sahay iyo siyo masfin iyo maxaan ku idhahdaa waa dadkan maartay siyaasad maxaan ku idhahdaa way badan yihiin waa qaambeydii
mala zanaawi ka waaweynaa weeye iyagu ururka aasaasay iyagoo aasaastay waa kuwii abiya xafiiska u furay marka ka xidhay waa ma soo diray kuwaas ma lama arko ma tagaan meelaha madaxtooyada iyo meelaha dadku joogiyo daa gaartay fadhiyaan ka meesha kuwa loo soo diray bay la soo hadli kan markay Xayla Maryan Dhasaleyn iyo Abi Ahmed iyo intii hore oo dhan maalmo hore oo dhan soo kaxeeyay noo keenay dhihi jireen waa loo geyn jiray soo gaari muraado madow inta lagu qaado yaa loo geyn bas waxbay u soo sheegay way soo diray marka wixii isay wadwada furaha ka hayo ku weerar